mid ka mid ah dilayaasha ugu halista badan dunida. 14 jirkiisii wuxuu dilay 2 qof, 18 inta uusan gaarin wuxuu dilay 20 qof. Aabihi ayaa intuu dilay kadibna wadnihiisa inta soo bixiyay cunay. Haddaba dilaagan halista ah oo dilay in ka badan 70 qof oo aabihi ku jiro. Midda la yaab kale, dadka wadankiisa waxay ka aaminsan yihiin inuu yahay halyeey qaran oo geesi ah. Baraha bulshada ayuu isticmaalaa. Waa YouTuber soo gudbiya muuqaalo aad loo daawado. Warbaahinta iyo dadkana waxay jecel yihiin inay la kulmaan maadaama agtooda uu ka yahay geesi. Haddaba waa kuma dilaaga halista ah ee ku jira listiga dadka ugu halista badan dunida. Muuqaalkeena ayaan ku sharxeynaa min bilow ilaa dhammaad noloshiisa iyo sida uu ku kasbaday magacan halyeey asagoo dilaa ah. Magacaygu Cabdiqafaar Gamaadiid oo idin leh meel walba oo joogtaan soo dhawaada. Pedro wuxuu ku dhashay wadanka Brazil sanadkii 1954. Nasiib daro qoyska uu ka soo jeedo ma ahayn qoys xasiloon oo aabaha Pedro wuxuu ahaa nin aad u xun oo dhibaateeyay mar walba hooyadii. Pedro wuxuu ku dhashay xanuun maskaxda ah oo soo gaaray dhaawac uu aabihii u geystay asagoo ku jira uurka hooyadii. aabihii ayaa laad kaga dhuftay caloosha Pedro hooyadii asagoo ay xambaarsan tahay uurkiisa. Xanuunkaas maskaxda ka soo gaaray ayuuna ku dhashay. 6 sano jirkiisii wuxuu saaxiib dhow la noqday awowgii ayaa macallin u ahaa oo bari jiray xirfadaha kala duwan sida dabaasha, shiishka iyo sida duurka wax looga soo disho ama ugaarta. Pedro wuxuu sheegay waqtigaas uu 6 jirka ahaa inuu aad u jeclaa inuu cabo dhiiga xayawaanaadka uu soo disho. Wuxuuna sheegay inuu ka heli jiray awood xad dhaaf ah. Wuxuu bilaabay inuu qoyskooda u xamaalo oo uu masruuf qoyskooda dusha saarto. Waqtiga uu 10 sano soo gaaray wuxuu bilaabay isku dayiisa dil ee ugu horeeyay wuxuuna u geystay wiil aqraabo ahaayeen. Pedro ayaa qaatay farda uu lahaa wiilkaas idan la'aantiisa. kadib wiilkay aqraabada ahaayeen oo aad uga da'weynaa Pedro ayaa ogaaday in fardihiisa la qaatay idan la'aantiis. waa uu xanaaqay. Pedro ayuuna dhurbaxsho ku dhuftay. laakiin muddo bil kadib ah Pedro awowgiis iyo wiilkii aqraabada ahaayeen ayagoo ka wada shaqeynayo mashiinka sokorta laga sameeyo ee shiida qasabka ayaa Pedro wuxuu go'aansaday in mashiinkaas uu ku dhexrido walaalkii si uu uga arguto dhurbaxshada u geystay bil ka hor. mashiinka ayuu ku tuuray walaalkii, gacanta idil ayaa burburtay oo mashiinka gacanta ayuu ka shiiday. laakiin nasiib wanaag isla markii awowgii ayaa ka soo gaaray oo mashiinkii damiyay. Pedro wuxuu sheegay inuu ka argudanayo dhurbaxshada loo geystay bil ka hor. 14 jirkiisa waxaa lagu eedeeyay inuu alaab ka xaday iskuul uu markaas dhiganayay, waxaana ku eedeeyay maamula ku xigeenka iskuulka iyo waardiyaha. laakiin Pedro wuxuu sheegay in alaabtaas lagu nabay oo uusan waxba ka ogeyn xatooyada alaabtaas. laakiin aad ayuu uga xanaaqay nabitaanka alaabtaas lagu nabay. isla markii waxa uu soo qaatay bistoolad uu awowgii lahaa wuxuuna u imaaday maamula ku xigeenkii meesha ayuuna ku toogtay. kadib wuxuu u imaaday waardiyihii alaabta ku nabay asagana meesha ayuu ku toogtay. waqtigaas uu dilka geysanayana waa 14 jir. waxa uuna dilay 2 qof. gobolkii uu dilka ka geystay ayuu iskaga soo tagay maadaama booliska ay raadsanayaan. wuxuuna imaaday magaalo kale. meeshan Pedro wuxuu ku bilaabay nolol cusub oo wajiyo badan leh. magaaladan uu imaaday waa magaalo caan ku ah daroogada. group leader waxaa ka ah nin lagu magacaabo China waxaa u shaqeyso gabar la dhaho Beauty. gabadhaas oo u suuq geysa daroogada. gabadhan quruxdeeda iyo jirkeeda ayay ku soo jiidataa dhalinyarada hadda soo kaceyso si ay u shaqaaleysiiso oo una gadaan daroogada. waxayna la kulantay Pedro oo baxsad ah wayna soo dhaweysay, way isfahmeen. maalin ayaa Pedro waxa u imaaday 3 dhalinyaro ah oo u shaqeynaysa ninka group leader xaafadda ka ah ee lagu magacaabo China. waxayna u sheegeen dhalinyaradan Pedro inay israacaan oo ay shaqo u baxayaan. laakiin Pedro uu ka shakiyay wuxuuna iska dhadhacsiiyay inay dilayaan ay asaga u socdaan. isla markiiba bistooladiisa ayuu la soo baxay. 2 ayuu meesha ku toogtay, mid ayaana ka baxsaday. cadow ayuu samaystay oo wuxuu isku diray magaaladii gaangiska joogay. Pedro waxa u soo hanjabay ninkii tuugada ugu weynaa oo lagu magacaabo China, wuxuuna sheegay inuu tallaabo ka qaadi doono Pedro. habeenada ka mid ah Pedro wuxuu arkay meedka gabadha lagu magacaabo Beauty ee saaxiibada ahaayeen. isla markiina wuxuu go'aansaday inuu magaalada iskaga tago maadaama gabadhii la dilay asagana la raadsanayo. nolol kale ayuu bilaabay wuxuuna la imaaday isbedel la yaab leh. wuxuu go'aansaday inuu hanuuno oo uu iska daayo dhibaatada iyo xumaantii uu ku dhex jiray. wuxuuna sheegay inuu u adeegayo bulshada oo wixii dhibaato ku haya uu ka qabanayo. laakiin si uu uga toobad keeno xumaantii uu ku dhex jiray wuxuu sameeyay waxyaabo dad badan ee aad oo la yaabeen asaga hortiisana aanan cidna samaynin. waxyaabahan ayuu Pedro sameeyay si uu uga toobad keeno xumaantii uu ku jiray. timahoo dhan ayuu iska wada xiiray wuxuuna soo dilay bisad madow. bisadii dhiigeeda ayuu isku shubay wuuna cabay. sidoo kale waxa uu soo qaatay qumbo iyo 7 xabo oo miraha galleyda ah. bisadii ayuu kala jeexay. waxa uu ka soo bixiyay xubnihii bisad sida keliyihii iyo wadnihii bisada ku dhex jiray. wuxuuna dhex geliyay oo uu ku tolay 7 xabbe ee miraha galleyda. kadib bisadii waa uu aasay. 7 maalin kadib ayuu soo bixiyay meedkii bisada.
waa uu kala jeexay oo ka soo bixiyay 7 xabbe ee galleyda ahayd kadib waxa uu ka dhigtay silsilad oo qoorta ku xirtay asagoo ujeedadiisa ahayd waxyaabahaas u sameeyay inuu ku toobad keenay oo dambigiisa idin laga dhaqay 7 xabbe ee galleyda ah ee silsiladda uu ka dhigtana wuxuu sheegay inay ka difaacayso xirsi xiran u tahay dhibaatooyinka ku soo socdo Pedro waqtigaas da'diisu waa 18 jir wuxuuna caqabad ku noqday tuugadii magaalada joogtay asagoo hal u tooganayo sidoo kale wuxuu beegsanayay oo hal u dilayay nimanka gabdhaha kufsiga u geysto magaalada idil ayuu caan ka noqday oo waxa raadsanaysa tuugadii uu nafta u keenay sidoo kale booliska ayaana raadsanayay booliska ayaa soo qabtay maxkamadda ayaana la geeyay maxkamadan waxay sheegtay inuu dilay 70 qof laakiin Pedro asagoo yaaban ayaa maxkamadda wuxuu ka hor sheegay inuu 70 qof ka badan uu dilay laakiin dawladdu waxay u diiwaan gelisay inuu dilay 71 qof midda la yaab kale oo dad badan ay la yaabeen waxay ahayd marka xabsiga loo sii waday gaariga waxa kula dhex jiray nin kale tuug ah oo la soo qabtay ninka ayuu wareys wuxuuna ku yiri maxaa lagu soo qabtay ninka ayaa u sheegay inuu kufsaday gabar sidaasna lagu soo qabtay isla meesha ayuu ku dilay ninkii ayadoo xabsiga aan la gaarin xabsiga markuu soo galay Pedro xabsiga waxa uga soo horeeyay tuugadii uu banaanka kula dagaalayay isla markiina tuugadii xabsiga joogtay waxay go'aansadeen inay dilaan 5 nin ayaa loo soo diray oo mindiyaal wato 5tiba meesha ayuu ku dilay xabsiga ayuu qabsaday tuugadii xabsigan wuxuu u noqday leader oo amarkiisa ayaa ka soconaya xabsiga isla markiina wuxuu bilaabay inuu hal u dilo khaniisiinta xabsiga joogtay khaniisiintu xabsiga ku dhex dilayna waxa lagu qiyaasay 26 khaniis oo Pedro wuxuu sheegay inuu khaniisnimada aad u nacbaa maalin maalmaha kamid ah ayaa waxa loo sheegay hadal uu aad uga naxay waxaana lagu dhahay hooyada waa ay dhimatay waxaana dilay aabaha Pedro wuxuu codsaday inuu ka qayb galo duugta hooyadii waana loo ogolaaday asagoo duugta jooga oo la wada maqlayo ayuu ballan ka qaaday hooyadii inuu u argudayo uuna dili doono aabihii wadnihiisana uu cuni doono laakiin midda la yaab kale aabihii waxa lagu soo xiray xabsiga uu Pedro joogay maalin kadibna waa uu dilay wadnihiisa intuu soo bixiyay uu calaanjiyay ayuu tufay Pedro wuxuu sheegay in wadnaha uusan cunin laakiin intuu soo bixiyay afka gashtay kadibna iska tufay dilalkii uu xabsiga ka geysanayana waa sii badatay dawladda ayaa waxa ku xirtay xabsi gooni ah meel gooni ayaa lagu karantiilay meeshaas ayuuna ku jiray 8 sano waxaana loo diray dhakhaatiirta qaabilsan maskaxda si ninkan xaaladiisa loo hubiyo 8 sano oo meel kaligii lagu karantiilay dhakhaatiirtan ee la tacaalaysay Pedro oo soo fiicnaaday xoogaha wuxuuna sheegay in mar dambe uusan dil geysan doonin ugu dambeyntii xabsiga ayaa laga soo saaray 2018 asagoo 63 jir ah dhalinyaradana uu ka wacyigeliyaa dilalka wuxuuna u sheegay inay iska ilaaliyaan xumaanta inay geystaan oo sidiisoo kale aysan noqon YouTube channel ayuu sameystay oo dad aad u badan ayaana u daawado hadda Pedro waxa uu ku nool yahay nolol caadi ah oo meel ayuu degan yahay waa xaasle ciyaal leh waraysiyaal kala duwan ayuuna bixiyay oo ku saabsan noloshiisa muuqaalkan intaas ayuu noogu egyahay haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow muuqaalkana like saar si dad badan u sii gaaro waqtigaagana waad ku mahadsan tahay Matou minha mãe, só não matou meus irmãos, eu tava preso, eu jurei vingança no caixão da minha mãe. Que é aquela história do coração, né? Que é... Mas eu só masquei. Que eu cortei o bico do coração, masquei porque eu falei no caixão, vou comer o coração dele. Foi o que eu fiz, foi vingança, mas não que eu engoli. Eu masquei e joguei em cima do corpo do meu pai dentro da cela.